Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo maanta gudoomiyay shirka toddobaadlaha ah ee Golaha Wasiirada ayaa uga warbixiyay shirka uu dhawaan iclaamiyay ee 27 Diseembar ka furmaya magaalada Muqdisho, kaasi oo ay isugu imanayaan Golaha Madaxda Wada-tashiga Qaran. Ra'iisul Wasaaraha ayaa u sheegay Golaha in uu madaxda dowlad goboleedyada uu gaarsiiyay kharashaadkii safarkooda iyo in diyaaradihii soo qaadi lahaa la diyaariyay si waqtiga uu iclaamiyay u furmo shirka. Shirka Golaha Wada-tashiga Qaran ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka, gaar ahaan midda Golaha Shacabka oo ay qaadaceen mucaaradka kadib markii ay sheegeen in doorashadaasi laga leexiyay hanaankii daahfurnaanta ah ee lagu heshiiyey. Shirka 27 Diseembar oo muhiim u ah xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa dib u sixid loogu sameynayaa qaladaadka ka jira doorashada Golaha Shacabka oo la sheegay in kuraasta qaarkood loo boobay shakhsiyaad gaar ah. Sidoo kale, shirka toddobaadlaha ah ee Golaha Wasiirada ayaa looga hadlay wada shaqeynta hay'adaha dowladda iyo gurmadka abaaraha. Waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga dalka xilli uu dalka ku jiro xaalad kala guur ah iyo doorashooyin ay hareeyeen madmadow badan oo dalka qarka u saaray xaalad